السلام عليكم. ma ogtahay in ay jiraan waddamo ay ajnebigu si ka fudud uga heli karaan jinsiyadda marka loo eego dalalka kale? Maanta waxaan kuu soo bandhigaynaa 5 waddan oo leh waddooyinka muuqda oo loo mari karo jinsiyadda iyo muddada aad u baahan tahay inaad halkaas ku noolaato. Laakiin xasuusnow, degnaanshaha muddada loo baahan yahay keliya ma damaanad qaadayo jinsiyadda. waxaa jiri karaa shuruudo kale sida luqadda, dakhliga, diiwaan dembi la'aan iyo imtixaan. Aan bilowno. 5. Brazil waa mid ka mid ah waddamada leh waddo cad oo naturalization ah. Qof ajnabi ah oo doonaya jinsiyadda Brazil, waddada caadiga ah waxay guud ahaan u baahan tahay 4 sano oo degnaansho joogta ah dalka. Waxaa sidoo kale jira shuruudo kale oo ay tahay in la buuxiyo, sida inuu qofku haysto dukumentiyada saxda ah iyo inuu buuxiyo shuruudaha sharciga Brazil. Waxaa xiisaha leh ayaa ah in muddada 4 sano lagu xisaabiyo laga bilaabo marka qofku helo degnaansho aan xad lahayn. Sidaas darteed, Brazil waxay noqon kartaa doorasho xiiso leh qof doonayo inuu muddo dheer ku noolaado Koonfurta Amerika. 4. Ireland. Ireland sidoo kale waxay leedahay waddo si cad loo qeexay. Qof weyn oo si sharci ah ugu nool Ireland wuxuu caadi ahaan u baahan yahay 5 sano oo degnaansho la aqoonsan yahay, iyadoo mid ka mid ah shuruudaha muhiimka ahi yahay inuu 1 sano oo xiriir ah dalka ku noolaado ka hor codsiga. Qofka waxaa kale oo laga doonayaa inuu caddeeyo aqoonsigiisa, degenaanshihiisa iyo inuu leeyahay dabeecad wanaagsan. Haddii aad tahay qof la aqoonsaday qaxooti ama qof helay international protection, Ireland waxay hadda guud ahaan u baahan tahay 5 sano laga bilaabo markii protectionka lagu siiyey. Taasi waa isbeddel muhiim ah sababtoo ah sharcigii hore wuxuu lahaa xaalado 3 sano. 3. Canada. Canada waxay leedahay nidaam aad loo fahmi karo marka qofku hore u haysto permanent resident. Si aad u codsato jinsiyadda Canada, waa inaad jir ahaan dalka joogtay ugu yaraan 1,095 maalmood. Taas oo ah qiyaastii 3 sano gudaha 5 sano ee ka horeeya codsiga. Waxaa sidoo kale jira shuruudo kale sida arrimaha canshuuraha iyo luqadda. Dadka da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 54 sano. Marka haddii qof ku helo permanent resident oo si dhab ah Canada ugu noolaado, waddada jinsiyaddu waa mid si cad loo qeexay. 2. Argentina. Argentina waa waddan aad caan uga ah dadka baaraya jinsiyadaha si fudud loo heli karo. Sharciga Argentina wuxuu leeyahay waddo naturalization ah oo ku salaysan 2 sano degnaansho xiriir ah. Taasi waxay ka dhigan tahay in qof ajnabi ah oo buuxiya shuruudaha degnaanshaha u codsan karo naturalization marka uu gaaro muddadaas. Argentina waxay sidaas darteed leedahay mid ka mid ah waddooyinka degnaanshaha ee ugu gaaban marka la barbar dhigo waddamo badan. Laakiin waa muhiim in la ogaado in sharciyada socdaalka iyo habraacyadu isbedeli karaan. Sidaas darteed, qofka qorsheynaya inuu halkaas u guuro waa inuu hubiyaa shuruudaha ugu dambeeya. 1. Peru. Laakiin fiiro gaar ah u yeelo. Peru waxay muddo dheer caan ku ahayd waddo naturalization oo u baahneed 2 sano oo degnaansho sharci ah. Laakiin halkan waxaa jira war muhiim ah oo cusub. Peru waxay 2025 soo bandhigtay sharciga cusub ee jinsiyadda, kaas oo kordhiyey muddada guud ee naturalizationka caadiga ah laga bilaabo 2 sano ilaa 5 sano oo degnaansho ah. Waxaa sidoo kale jira shuruudo dheeraad ah sida dakhli sharci ah,
baaritaano amni iyo qiimeyn ku saabsan aqoonta luqadda, taariikhda, juqraafiga iyo dhaqanka dalka. Gunaanad, marka la soo koobo, ma jiro waddan aad si fudud u tegi karto oo aad isla markiiba jinsiyadiisa u heli karto. Waxaad marka hore u baahan tahay waddo sharci ah oo aad dalka ku degto, kadibna waxaad buuxinaysaa shuruudaha jinsiyadda. Haddii aad jeceshahay muuqaalada noocan ah oo ku saabsan wadamada, socdaalka, macluumaadka dunida, subscribe garee channelka, like saar muuqaalka oo la wadaag qof aad u malaynayso inuu ka faa'iidaysan karo. Muuqaalka xiga ayaan isku arki doonaa haddii Ilaahay idmo insha Allah. Mahadsanidin daawashada.